waxaa soo kordhaya fatahaadaha webiga Shabeelle oo ka geysanayo qaar ka mid ah tuulooyinka degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. In ka badan 13 tuulo ayuu ku soo fatahay, saameyn xoog leh ayuuna u geystay dhammaan dadkii ku sugnaa tuulooyinkan. In ka badan 100 qoys ayaa ku guryo beelay iyadoo sidoo kale fatahaadu ay baabi'iyeen dhul beereedyo gaaraya 100 hektar. meelaha ugu daran waxaa ka mid ah tuulooyinka xuduudda u ah Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ay la leedahay Hirshabeelle, waana sanadkii saddexaad oo xiriir ah oo webigu ku soo fatahay mana jirto wax gargaar ah ilaa hadda soo gaaray. Gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha maaliyadda degmada Wanlaweyn oo soo kormeeray ayaa ka warbixiyay xaaladda dhabta ah ee halkan. waxaan soo gaarnay tuulooyinkii ay ku fataheen biyaha webiga Shabeelle, tuulooyinkaasoo aan soo marnay ilaa 13 tuulo, sidana loo sheegay in ay tiradooda gaarayso ilaa 19 tuulo. hadda waxaan ku sugannahay tuulo ka mid ah tuulooyinkaas lagu magacaabo tuulo Jibriil Duqa. waxaan daqiiqada ka hor soo marnay Garasweynow iyo tuulo la dhaho Bashiirow iyo tuulo kale lagu magacaabo Luluto. marka alxamdulillah waa markii 2019 ayay saanoo kale u soo mareen dhulkan biyo webiga. wax gargaar bani aadamnimo soo gaara ma jirin. dalaga markuu u soo gaay in mar labaad waxa soo hadana soo gaara ayaxi dhibaateeyay. markii saddexaadna hadda waa biyihii webiga ayaa fatahaadan sameeyay xoog badan leh. tuuladan hadda aad u jeedaan waa tuulo qof bani aadam aan ku nooleen laga cararay, dadkeedii ay ka barakaceen biyo darteedii. sanadkii hore wax gargaar soo gaara bani aadamnimo ma jirin. haddana waxaan rabnaa inaan xaaladooda lala socdo oo dowladda federaalka, maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, hay'adaha caalamka in ay gargaar la soo gaaraan. dadkan waa dad 2 sano ay isugu dartay, waxba aan haysanin, dhibaataysan, beerahoodina biyaha heerka ay gaareen waad u jeedaan. marka alxamdulillah cid kasta ay mas'uuliyad ka saaranta waxaan leenahay ka guda meeshaan mas'uuliyadaadi. dad dayacan waay oo dhibaataysan, guryahoodii ka barakacay, xagayga uu ku sii da'ayo, wax alaab aysan haysanin. marka waxaan leeyahay mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad oo in lala soo gaaro gurmad degdeg ah. meeshaan waxaa ka soo socota xaalad bani aadamnimo ah. waxaan dhihi karaa waxay qarka u saareen macluul. dadkan waa dad beeraley ah, waa dad oo tuulooyin degan, ma aha dad guurta xoolo leh. dadkii deganaa tuulooyinkan ayaa gebi ahaanba isaga qaxay, waxayna sheegeen inay ku sugan yihiin xaalad bani aadamnimo. booti aha ilaahay mahadle biyos ibaabayeen dadkay duunyaday meel idle duur ee waa rooge ilaa mahadle raashuunga aan baahina shinyeera aan baahina gogola aan baahna oo abeedanka in hogsidaan ilaahay mahadle hadii walli ninka gargaara bohootiyana may fadaane may suq haatan biyo wabis ku qahani hadda ni dhex jiraan ni daadow hayaan dadka maamulaha hal ninka sheego gargaarkaas. ugu dambeyntiina gudoomiyaha degmada Wanlaweyn mudane Maxamed Siido Cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka in sida ugu dhaqsiyaha badan loola soo gaaro gurmad degdeg ah. geego oo taariikhda inta 23 bil 7 2020 sida hadda si muuqata oo isin aragaaseen in degmada Wanlaweyn soo daareen fatahaadii biyo ee webiga Shabeelle oo nunku kooyan dhinacaas balcad hegshay nunku kooyan in degmada Wanlaweyn soo daareen iyo arag haytaan qayb ku mid ah tuulooyin badan oo degmada Wanlaweyn ku tirsan ilaa iyo 20 tuulo ka dhawaad iyo hadda biyoogi soo daareen waana biyo socdaan biyo hadda oo fadheedeen oo meelkii roogsideen ma ah intaas hadda soo daareen in ku badan ina soo daaran iyo suurtagal ah oo soo socdaan oo tuulooyin badan kala hadda ina soo daaran ilaa iyo xataa hadii biyo xoog soo ilaahay insha Allah yarayna am roobab kala iska darsamaan ma macquul ah in biyo kasta ay soo daaran laamiga oo afgooy iyo Wanlaweyn dhaxeeyo ilaahay ma ku tuwaana ina dhibaatadaas intaas la eg in oo soo daarnaya ilaahay ku tuwaan in biyo no gadaal soo dam ina iyo go'aan iyo ilaahay ku tuwaan masiib mufayl laakiin ilaaha shaani qadarka ilaahayna in la qaadada leen baahina. marka ma in sheegaanay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo in ka horreeyay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garan, gudoomiyaha baarlamaanka mudane Cali Saciid Faqi, wasaaradda gargaarka ee Koonfur Galbeed, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha. intaas waxa waaye wasaaradda oo shaqada ka leh waaye dhibaatooyinkaas taw in ay wal qoodaan qaasatan wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed ama maareynta masiibooyinka intaba macna ma in sheegaanay in gargaar degdeg ah dadkan degmada Wanlaweyn la isla daaro. sanadkii hore oo deertii hore sidaan oo kale iyo ahaaytay roob badan iyo tuulooyin soo daareen warbixin badan ah gudbiin wal ummadii leen qabada ma jirnay intii degmada iyo tabartay wal iska filnaado korto iyo wal luun qabada laakiin haddana masiibo kale tahay oo mar labaad soo nagati marka awood dhaqaalo hadda intaas hadda ka kaafeen hadda ma hayno
marka ma ay codsadaan dowlad goboleed koonfur galbeed in macna arintaas taw si degdeg ah oo loo qabado dhammaan hay'ado gargaarka oo quseeyaan arrimahaas taw iyo guddiga fatahaado oo dowladda koonfur galbeed soo biidi iyo kuwa federaalkaba inta ma ogeysiyaan in dhibaatadaas maaldo si wajahan degmada Wallaweyn ilaahay qeyr siiyo madaxweyne Cabdicasiis shal usoo garow roog dhuuso mareeb galmudug ayaa ku dhawaajay in degmada Wallaweyn oo in warbixintaas noo daarti sax waay warbixintii mudan madaxweyne waag hadda adaba arag oo haytoba waa degmadii Wallaweyn waay marka arintaas taw in ummadaas taw gargaarka oo in qayb ku ahaadaan iyo codsadaan Cabdiqani Maxamed Xasan warbaahinta koonfur galbeed Wallaweyn.